haddii godolole ka jirta siyaasadda inuu siyaasadda iftiimiyo haddii godolole ka jirta jacaylka iyo qaabka loo fahmay inuu jacaylka iyo qaabka loo fahmay dadka uu ka jaahilto maanta waxa jirta weerar baan baa la isku haya markaad eegto xagga dhulka xagga dhaqaalaha xagga fikirka xagga dhaqanka xagga wax kastaba saas darteed fanku waa ka kaliya ee ku sugi kara tubta kaliya ee umadu haysato sida waqtigan aad sheegtay lagu soo koobay jacayl ka balaaran yahay oo nolosha waxyihiga kala duwan baa lagu salayn karaa laakiin fankii waxaad moodaa hadda inuu ku soo koomay in dumar loo heeso in jacayl kaliya lagu qiimeeyo laakiin inta aad buu ka sareeyaa sida tusaale ahaan buugta la qoray majaalada kala duwan ay ka kooban yihiin qaar siyaasadda ah qaar taariikhda ah qaar juqraafiga ah qaar dhaqanka ah siday buugtaasi majaalo kala duwan uga kooban yihiin ayuu fankuna waxyo kala duwan u diyaarin karaa wuxuu diyaarin karaa haddii godolole ka jirta siyaasadda inuu siyaasadda iftiimiyo haddii godolole ka jirta jacaylka iyo qaabka loo fahmay inuu jacaylka iyo qaabka loo fahmay dadka uu ka jaahilto haddii loo baahan yahay tusaale ahaan in dhaqanka wax ka khaldameen waayo dunida casriga maanta waxa jirta weerar baan baa la isku haya markaad eegto xagga dhulka xagga dhaqaalaha xagga fikirka xagga dhaqanka xagga wax kastaba saas darteed fanku waa ka kaliya ee ku sugi kara tubta kaliya ee umadu haysato waa ka si aan umada loo riixin barta ay ka taaganta fikir iyo dhaqanba waa ka kaliya ee toojka ugu iftiimin kara xaqiiqada nooc kasta umad kasta oo fan way leedahay marka ko culays ku xisaaran yahay abwaanadu inay isku tagaan oo fikiraan wax soo saaraan kadib iyagu maadaama ay yihiin mashiinkii dhanaa ee wax soo saarka waxa kale iyaga ku riixi kara kaliya abwaanada iyo xafiiska dhaqanka dalxiiska oo iskaashada waa labada kaliya ee wax soo saari karaan inuu aaminsan marka waxa kala duwan abwaan iyo hal abuur in la kala saaro qofku inuu wax hindiso maansanad hindisto waad kartaa laakiin maansa cabirkaygu intee leeyahay baa saadaalin karta abwaanku wax 30 sano kadib dhici kara buu saadaalin kara waa qof waaqica jira isu geysan kara kadibna ka soo saaraya waxa mustaqbalka lagu jahaysan yahay laakiin nin ay u dhaafsiisnayn inuu tixiro jacayl aw tiriyo oo ku cabiro inanta uu jecel yahay amaanteeda taas abwaan laguma tilmaami karo sida raggii hore u yaqaaneen ma aynan ahayn marka abwaanku waa qof waa qaamus inuu dhameystiran nolosha qaybaha kala duwan waa qof haya dhaqankii mahmaahihii suugaantii wax kasta oo nolosha bini'aadanka oo ninkaasi markaa turjumo wax ku taxalluqa nin xafisan oo haya oo garyaqaan ah oo suugaan tirin kara baa la oran karaa abwaan marka labaad fanku waa wax aad u ballaaran fanku sida hadda inagu aan u naqaan ma fanku wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan laakiin hadda inagu waxaan ka hadlaynaa waa fankii suugaanta oo ku taxalluqa afkii iyo dhaqankii fan marka la yiraahdo waa muraayada dhan ee bulshadu iska dhax daawato waa wax u tilmaamaya bulshadu halka ay ka liidato waa wax u tilmaamaya bulshadu halka taariikhda ay ka timid waxay ka baran karto waa wax u tilmaamaya bulshadu halka ay u socoto wax toosh ugu sii iftiimin kara fanku runtii sida raggii hore ee Soomaaliyeed ay u adeegsan jireen wuxuu ahaa wax aad u ballaaran oo bulshada wax lagu barayo haday noqoto riwaayado haday noqoto heeso haday noqoto gabayo wax umada danteeda ka turjumay buu laakiin waxaad moodaa qarn 2020 wixii ka dambeeyay fanku inuu noqday wax muhiimadii iyo fariintii cuslay oo gudbin jiray aan sidin taasna waxa keenaysa dadka fanka waqtigan ku jira oo aqoon badan u lahayn oo fariinta fanku sida hadii ay fahansan yihiin wixii uu mudnaabay ku gudbin lahayd ku xidhnow lana wadaaga asxaabtaada faaladaadu waa muhiim Dagara Media waa saaxiibka dadweynaha